kulanti wacan daawadayaal halkani waa Dugaal TV ku soo dhawaada wararka Soomaalida iyo kuwa caalamka ee xilligan ugu xiisaha badan qaybtaana hadduu Rabi qadaro waxaan idinku soo gudbin doonaa madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyihii hore nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo si weyn isu hortaagay in dib loogu soo celiyo dhalinyaradii lagu tababaray dalka Eritrea in Soomaaliya dib loogu soo celiyo Abiy Ahmed Cali ayaa la sheegay inuu arrintaani kaalin weyn ka qaatay haddaba madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa arrintan si weyn uga xumaaday iyadoo xilligan uu ku sugan yahay dalka Mareykanka haddaba kaalin noocee ayuu qaadi doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud maxaa xilligan ku soo beegaya dagaalka u dhaxeeya damul jadiid iyo nabadii nolol xogihii ugu dambeeyay ayaan idil wadaagi doonaa saaxiibayaal madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu cariga Mareykanka kulan kula qaatay wasiirka gaashaandhigga Mareykanka iyadoo arrintaani ay si weyn uga xumaadeen siyaasiyiinta Somaliland oo ay sheegeen in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu xumeynayo xiriirka kala dhaxeeya iyaga iyo dalka Mareykanka oo la sheegay in maalmihii la soo dhaafay uu aad u wanaagsanaa Mareykanka ayaa saldhigyo waaweyn ka sameystay gobolada Somaliland xilligan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa Mareykanka ku qancinaya in Somaliland ay tahay maamul ka mid ah Soomaaliya xogii ugu dambeeyay kulankaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wasiirka gaashaandhigga Mareykanka ayaa idin wadaagi doonaa saaxiibayaal balse aan ku bilaabo madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyihii hore nabad sugidda sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa la soo tabinayaa inay is hortaag ku sameeyeen in dib loogu soo celiyo Soomaaliya dhalinyaradii lagu tababaray dalka Eritrea oo markii horeba iyagu dalkaasi ay u qaadeen sidoo kale waxaa kaalin weyn ku leh in is hortaagan ay sameeyaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyihii hore nabad sugidda sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir Abiy Ahmed Cali oo saaxiibo dhow la ahaa madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kalena saaxiibo siyaasadeed la madaxweynaha dalka Eritrea afweerki sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la sheegay inuu arrintaani si weyn uga xumaaday iyadoo wararku qaar ay tabinayaan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu falcelin weyn ka sameyn doono arrintaani xilli laga sugayo in magaalooyinka Soomaaliya uu dib ugu soo celiyo dhalinyaradii loogu qaaday dalkaasi Eritrea waalidiintii Soomaaliyeed ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud kula kulmay magaalada Muqdisho ayaa wali ka sugayay inuu wiilashoodii ama markaa dhalinyaradii ay dhaleen uu dib ugu soo celiyo dalkii hooyo ee Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud arrintaani waxay ku noqon doontaa dhabarjab weyn xilli dalka Soomaaliya uu ka socdo dagaal ay kula jiraan ciidamada macawisleyda iyo sidoo kale ciidamada dawladda al-shabaab oo ka socdaba deegaano ay ka mid yihiin gobolada Hiiraan Galgaduud iyo sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed ciidamadan ayaa la sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu dalbaday in markaan dib loogu soo celiyo dalka Soomaaliya xilli wararka qaar ay tibaaxayaan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii horeba lagu xujiyay inuu bixiyo lacag aad u tiro badan oo uu sheegtay madaxweynaha dalka Eritrea in qarashkaasi uu ku bixiyay tababarka iyo sidoo kale raashinkii uu siinayay dariiskii ay xirinayeen dhalinyaradii ku dhawaad la sheegay inay gaarayaan 5,000 oo dhalinyaro oo ku sugan magaalooyinka sidoo kalena dalka Eritrea oo halkaasi tababar ugu socdo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ololihiisa siyaasadda waxa uu ku soo galay inuu dib u soo celinayo dhalinyaradii ay dayaceen hogaankii isaga ka horeeyay ee nabadii nolol Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu ku dhaleeceyn jiray in dhalinyaradaasi uu iibsaday sidoo kalena ay ka qayb galeen dagaalka ka socda sidoo kale Itoobiya oo uu sheegay in dhalinyaradaasi qaarkood ay ku leedeen xilli madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku booqdaba magaalooyinka lagu tababarayo dhalinyaradaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa arrintaani waxay ku noqon doontaa boog siyaasadeed hadiiba ay u suurageli weyso in dhalinyaradaasi uu dib u soo celiyo xilli waalidiinta Soomaaliyeed ee kula kulmay magaalada Muqdisho ay ku dhirsugayaan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu dhalinyaradaasi dib ugu soo celin doono Abiy Ahmed Cali ayaa arrintan si weyn uga qayb qaatay Abiy iyo sidoo kale madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hayeen xulafo siyaasadeed sidoo kalena madaxweynaha dalka Eritrea afweerki isaguna la ahaa saaxiibo aad u dhow walow wararku qaar ay sheegayaan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud lagu adkeynayo in dhalinyaradaani uu ka bixiyo lacag ay sheegatayba dalka Eritrea wararka qaarna waxay tibaaxayaan in madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyihii hore nabad sugidda sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji in arrintaani ay ka damacsan yihiin in dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab iyo sidoo kalena madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ciidamadani dalbaday in ay ka qayb noqdaan dagaalkan xilligan ka soconaya gobolada Galgaduud iyo Hiiraan ee Soomaaliya haddii markaan eegno madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu aqalka Pentagonka Mareykanka kula kulmay
wasiirka gaashaandhigga Mareykanka isagoo sheegay in arrimo dhowr ay ka wada hadleen sidoo kalena arrimahani ay ka mid yihiin arrinta Somaliland oo maalmihii la soo dhaafaba uu xiriir dhow la lahaa dalka Mareykanka. wararka qaar waxay sheegayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu Mareykanku qanciyay in hadiiba xiriir ay la samaysanayaan Somaliland ay ka soo maraan dowladda federaalka Soomaaliya sida ay u soo maraanba maamulada kale markii ay xiriir la samaysanayaan. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Ucud Faysal Cali Waraabe ayaa mar sii horeysay ka hadlay tegista xasan sheekh maxamuud ee xarunta wasaaradda Mareykanka ee magaalada Washington. Faysal Waraabe oo si weyn u dhaliilsan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in uu xasan sheekh maxamuud samaynayo xiriirka ka dhaxeeya Somaliland iyo sidoo kalena Mareykanka uu ku wiiqayo kulankani. gudoomiye Faysal Cali Waraabe oo si hadlay waxa uu sheegay in xiriirka u dhaxeeya Mareykanka iyo Somaliland inuu sidaasi ku go'i doonin xasan sheekh maxamuudna waxa uu sameynaya ay tahay wax uusan ka fiirsan waa sida uu hadalka u dhigay. marka la yimaado hadalkan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kaleba iyo Somaliland ayaa la filayaa in ay dib u furaan wada hadaladii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Somaliland. arrintan waxay noqon doontaa in Somaliland ay dib u sii sakato iyadoo maalmihii la soo dhaafaba Somaliland iyo sidoo kaleba xiriirka u dhaxeeya Soomaaliya uusan wanaagsaneen haddii ay lahaayeen dhoofitaanka xilli magaalada Hargeysa lagu xiray dhalinyaro Soomaaliyeed oo la sheegay in ay ka yimaadeen magaalada Muqdisho. maamulka Somaliland oo hogaaminayo Muuse Biixi Cabdi ayaa arrintan si weyn isaguna uga hor yimid xilli la sheegayaba in Somaliland ay la filayo in ay tilaabo weyn arrintan ka qaado. wararkii ugu dambeeyay aad ka daawanayseen Dugaal TV na saaxiibayaal wanaagsan.